muuqaalkan waxaan kusoo qaadan doonaa gabar isla habeenkii la aqal geeyey aroortii ama subaxdiina saddexdeeda dalaaq gacanta loo saaray. Ma ninkaa nasiib xun mise gabadhaa nasiib xun? gabadhii markii aroortii la gaaray waxaa la arkay dadka dariskeeda ah iyadoo muxuu alaabteeda isku duwanayso, isku aadisanayso oo rabto inay baxdo. dariska ayaa kusoo baxay, war sax u jiraan xaalile arooska u dhacay waay hadirtaan alaabtaada ururinaysaa. he ninka wuu ifuri oo ifur ah meeq dalaaqo kuu furay, 3 dalaaqo igu furataa ma rabo inuu mar dambe igu naqsado. familkeeda la waca telefoon dhac, familkiya imaad, dadka dariskiya meesha taagan. ninkiya waxaa la weydiiyey su-aal, saaxib maxaa la dhahay, muxuu ahaa sige gabadhan maxaa ku furtay? waxaad ila daabataan qisadaas oo muxuu ahaa sige faahfaahsan. ila daaba muuqaalkan. wuxuu yiri xalay horta naagtaana waa xoolo daba maro kabayga banaankan ku siibay sooma aysan xarayna waa ka soo gudubtay way soo kor martay wayna ayaan xun tahay oo inta waagu bariina tuuga qaadatay. waa xoolo daba maro wuxuu yiri waana dhaqaale xun tahay oo wuxuu yiri digsi ay dab saartay waxa la waxay qoryaheeyay isku geey. waana cabal xun tahay oo wuxuu yiri iyadoo dabayl saad ay dabki ka sii hayday afuufto. waana qumayo wuxuu yiri way habaarto waxay tiri oo yiri ilaahay meel daad balaaya saa kugu keen asar rob dabki naga duuyo. shanta maada way tahay oo naagtaas mana qabayo. ninkan gabadha furay inta shay shanta shay uu soo qaatay way ku saxsan yahay. haddii oo muxuu ahaa asiga kabihii banaanka ay ugu soo tagtay yaa qorihii oo lagu kaasa lahaa bishii oo dhan hal mar dabka ay ku shubtay, haddana dabkii markuu si fiican u qacay ay habaar ku tuurtay iyo waxyaalaha kale yarkaan uu sheegay oo dhan way ku qaldan tahay. marka gabdhaha marka ay yaryihiin ayaa la rabaa in la abaabiyo, loo sheego muxuu ahaa asiga war muxuu ahaa asiga sansana familka loo dhaqaado. ma aha muxuu ahaa asiga ninka lacagta in laga qaado la dhaha saaxiib gabadhan aan kugu darnay bax. ninka dhagax ma aha, ninka waa nin waayo arag ah. wixii ka imaan doono dhibaatadan hadirtaan ku dhacday yaa waa marka easy waa hadirtaan waa bilow. haddii hadirtaan waxaan uu ku aamuso waxay ku naqanayaan wax ka weyn. maalin maalmaha ka mid ah meel uun ka qaban karin ayay gaarayaan. marka ninkan waa ku raacsanaa aniga inuu iska qabto markii ugu horeysay dhibaatada gabadhan ay samaysay. maxaa yeelay geedka markuu yar yahay ayaa la toosin karaa, hadduu weynaado toosin ma laha. maxaa yeelay wuu adkaaday. daawade adiga i daawanayo wiilow, gabadh haddii lagu keen lahaa habeenkii subaxdii ma furi lahayd, mana ku furi lahayd sababahan hadirtaan ninkan oo meesha la taagan yahay.